markaa xukuumataan cabdimaali ee go-aankiina ka gaadhay annana kaayagu meel buu yaallaa ku talagala ku seexda saa doonaysaa nowgala saaka waxaan u soo kacay cabdimaalig arrintiisa waxaan ugu soo kacay dembi laguma haysto qabiil baa xidhay waa la maqlayaa waa raggaa la tirinaya waxaanu sugaynaa furaha sharka meel baanu iskaga rignay laakiin waxaan sugaynaa maanta oo soo saaraynaa xukunka cabdimaalig baanu la sugay meeshaannu dhignay inaannu ka soo saarno iyaannu in kale kaasaannu la sugaynaa waxaanna leenahay somalilan waa maqlaysaa oo arkaysaa annagu baryina mayno maanta qabiilkaa dee xidhay ninka xaqdarrada ku xidhay somalilan waxaan leenahay way aragtaa arrinka cabdimaalig somalilan iyo islaamku aad iyo aad buu uga dheragsan yahay waa arrin loogyahay weeye annana haddaan nahay reerka uu ka dhashay uu ka soo jeedo horena waanu uga hadalnay muddona waanu ka aamusnay mana aanaan ilaawine bal waxaanu eegaynay dadka inta aan wax ogaynay inay ogaadaan arrinka cabdimaalig sida uu yahay iyo nooca uu yahay kiina waa la ogaadayoo maanta waxay la tahay somalilan way ka dheregsan tahay arrinta cabdimaalig wuxuu sheegay iskuulka abaarso wuxuu sheegay arrin xaqa oo ka jira oo baadareedaaso ay diinta gaalada ay ku faafinayso iskuulkii baa layidhi maxaad u sheegaysa al-jasiira ka hadlaysay xalayto arrinkaa waa wax la wada ogyaho waadaxa wey cabdimaalig tuu ku xidhay horta waa islaamnimaa loo haystaa wax kale looma haysto midda labaadee loo haystaana waa reernimaa loo haystaa waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha cabdimaalig ka soo jeeday waxaanu u sheegaynaa reer somalilan oo naga go-an oo gun naga ah war ninkaa xaqdarrada loo haysto ee reerku u heshiiyey reer baa u heshiiyey sida hore odayaashu usoo sheegeen waa arrin reer adeer kuwii madheero jabsan jiray way joogaan kama dhammaan dhulka cid aanu baryaynaa maanta ma jirto wuu naga soo dhammaaday arrinkaas laakiin haddii mar odayaashii arkeen somalilan aragtay sharcigiina aad aragtaan waxa weeye yaanoo cabdimaalig horaan uga samirna iminkana waxa weeye say doonayaan ka yeeray annagu waxa weeye taayadu waa meel somalilan wali wada joognaa waxa weeye 150 kilomitir baan joognaa meel kuma kala maqan maanta odhan mayno ha la sii daayo iyo ha la saamaxo midna odhan mayno waxa ku soo socdana waa ognahay waxa uu soo marayna waanu ognahay waxaanu leenahay oo keliya haddii la helayo ninkaa cadaalad ha la mariyo ilaa guddoomiyaha maxkamadda sare ilaa garsooraha kiiskiisa haya iyo garsoorayaasha kale ee maxkamadda qaranka iyo looyarada waxaanu ka codsanaynaa ninkaa in cadaalad la mariyo laakiin odhan mayno saanaxa dhammaan waxaan salaamayaa somalilan meelay joogtaba waxaanu somalilan iyo islaamkaba u sheegaynaa arrintaa laga soo hadlay cabdimaalig muuse cogdoon oo noqotay boob aan bogsanayn waxaad moodaa marka ugu horraysa inankan in laga baadhayo macdan oo calooshiisa gashay anugu ma garanno waxa laga baadhayo ee laga doondoonayo in badan baanu dul qaadananay waanu arkaynay xumaanta iyo foolxumada meeshaa ka socota waxaananu aragnaa oo ay tahay oo cid waliba og tahay in ninkaa qoys haysto ama reer oo waxa uu ku haystaa uu yahay maxaad iskuulka abaarsee baadiriyaddii caddaatay ee kiristanka ahayd ee diinta kiristanka fidinaysay maxaad u sheegtay waxaad moodaa wixii caddaaday ee ay dalka uga carartay ee uu cabdimaalig sheegay in ninkaa lagu haysto qoys baana ku haysto oo somalilan ka sheegtay iskuulka abaarso reerkaa la sheegay sacad muuse ayaad moodaa inay ku suntan yihiin oo sheegteen meesha wixii uu sheegayna waa wax caddaadoo la wada ogyahay maanta laga dherigsan yahay waxaa kaloo caddaatay in rag isku reera oo raggii waaweynaa ee dalka u talinayay ee siyaasiyiintaha oo qaar xilal fara badan hayaan
in si midaysan ay ninkaa ugu dhegan yihiin waayo somalilan qoys maaha qoys baa ninkaa ku dhegan hadday tahay garsoorayaasha hadday tahay kii soo qabtee taliya ahaa hadday tahay kuwa ka hadlaya ee dilka ku xukumay hadday tahay madaxweynaha waddanka ugu sarreeya saw ka hadlay oo sooba xidho u xidhan yahay qoys baa arrinkaa ninkaa mintid ku ah cid kaloo somalilan oo yaad uga samaynanaa ama ka saaraynaa ma jirto reerkaasu dee waanu ognahay inay dembigay u haystaan aanay saamaxan odhan mayno cabdimaalig sidaanu hore u sheegnay cid gaara buu u xidhayay waxa weeyaan reer sacad muuse la yidhaahdo oo iyagu sheegay oo iscaddeeyey inuu iyaga u xidhan yahay buu u xidhan yahay waxaana taa caddaynaysaa rag fara badan oo isku reera baa arrintiisa maxkamadda ka hor dil ku xukumay reerkaa waxaanu leenahay annagoo ah beesha sacad yunis boqaashiisii iyo waayeelkiisii ninkaasi idinku idin xidhay horena waa idinkii dil ugu xukmay inta hadda idin hadhayna dee dilkiina ha idinku xuknaado waxa weeye waxaad ka heshaan baa leedihin mana joogtaan dee waxa weeyaan hargeysa keliye meel walba wada joognaa meel kasta waynu wada joognaa sidaad hore dilka ugu xukunteen ragga faraha badan uga hadlay haddeer inta hadhayna dilkiina ku xuknaada ninkaasina waxa weeyaan ilaa iyo waxa weeye hawshiisii intay bilaabatay iyo ilaa hadda cidduu dhakada u saaran yahay waa idinka